السلام عليكم وعلى خطاب سيدي ayaad ku noqon kartaa milyoneer sidee ku noqon kartaa milyoneer sidee ku noqon karaa milyoneer يا سلام walaal mid ogow ma jiro taajir dhashay isagoo milyaneer ah ma jiro taajir dhashay isagoo oo afka ku wata dahab bal waxay ka dhasheen qoysas faqiir ah nolol liidata ku jira ama qoysas iska caadi ah haddaba dadkaas sidee ayay ku awoodeen inay ka tagaan faqriga inay ka tagaan nolosha liidata inay ka tagaan nolosha baagamoodada inay ka tagaan nolosha waqti lumiska ay gaaraan nolosha taajirnimada hantiile sidee ayay ku awoodeen inay gacanta hoose ay ka tagaan ayna noqdaan gacanta sare iyagoona sameyn xadgudub tuuganimo xaaraan iyagoona waxaasoo dhan sameyn sidee ayay arrintaas ku xaqiijiyaan runtii walaal wadooyinka lagu noqdo hantiile way badan yihiin laakiin laba wado ama hal wado ayaanu kasoo qaadanaynaa oo aad ku noqon kartid milyoneer 9 sano ka hor in ka badan ayaa nin la dhaho George Clason waxa uu qoray buug oo magaciisa ahaa ninka ugu taajirsan magaalada Bible saasoomalena Bible waa kan buugga halkan ay uga jeedaan walaalayaal buuggaas malaayiin dad ayaa iibsaday malaayiin koobi ayaa laga sameeyay sidoo kalena luqado badan ayaa lagu turjumay adigaba waxaan kugula talinayaa inaad akhrisatid haddii aad waqti u helaysid carabiga haddii aad taqaanid iyo english haddii aad taqaanid labadaba waad ku helaysaa haddaba buuggaas waxyaabaha ku qoran ee lagu noqon karo millionaire waxaa ka mid ah kayd walaalayaal badankan waxaan nahay dhalinyaro nolosheena hadda haddii aan bilowno inaan wax ururino mushaharkaaga iyo biilka kusoo gal haddii aad mushaharkaas 10% aad ururisid aad bil kasta meel aad dhigtid yani bil kasta $100 haddaad meel dhigtid oo aad arrintaas muddo joogtaysid waxaan hubaa lacagtaas inay lacag badan noqonayso waxaan hubaa in aad lugta saari doontid wadadii aad ku noqon lahayd millionaire aniga kuma dhahayo lacag meel akoon iskaga gur ma jirto taas bal lacagtaas markay ku badato fursad ayaad heli doontaa maalin maalmaha ka mid ah oo aad kaga faa'iidaysatid lacagtaas kuna furatid ganacsi adiga ku gaara runtii dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu arkaan wax ururinta inay tahay wax fudud runtii ma ahan bal waxay kaaga baahan tahay go-aan iyo inaad joogtaysid haddii aadan awoodin inaad biilkaaga aad ka jirtay 10% waxaad ka bilowdaa 1% 1% meel dhigo 2% meel dhigo 5% meel dhigo waxyaabaha kuu suurtagelinaya walaal inaad wax ururisid waxaa weeye in aad ka fakartid inta aadan bixin ka hor inta aadan iibsan ka hor waxyaabaha annagana dila waxaa ka mid ah oo nolosheenan hoos u dhigay waxaa ka mid ah badankeen markii aan wax jeclaano annagoona ka fakerin annagoona xoogaa u kaadin ayaan isla markiiba waan iibsanaa runtii taasna ma ahan wadadii aad adigu ku noqon lahayd millionaire maanta akoon samayso waxaadna ku ururisaa wixii aad awoodid ee ka go-aya biilkaaga waxaadna ku ridaa akoonkaas ka hor inta aadan lacagta aadan noloshaada kale u isticmaalin yani lacagta biilka markaad soo qaadid intaadan noloshaada kale ku fangareen waxaad ka goysaa inta aad ururin lahayd akoonna ku rid markay lacagtaas ku badatana isku day inaad ganacsi aad maalgelisid iskuna day walaal mar kasta uu biilkaaga siyaado in ay siyaado waxaad ururinaysid dadka badan waxay ka cabtaan xoolaha oo baraka lahayn wixii iska dhamaanaya dhibka iyaga ayuu ka jiraa markay wax badan helaanba wax badan ayay bixiyaan mid labaad waxay tahay walaal dadka adduunka ugu taajirsan maalqabeennada adduunka ma jiro qof meel ku gaaray mushahar u qaato qof meel ku gaaray qof kale wax uu ka sugayo hadda walaal haddii aad meel ka shaqaysid oo aad bishii biil qaadatid wax ururi kadibna waxaad ku furataa ganacsi adig ku gaara midkaas ayaa guul lagu gaaraa millionaire lagu noqdaa hantilana lagu noqdaa
guryana laga dhistaa. midda labaad oo dadkan maalqabeennada ay taajiriin ay ku noqdeen waxay tahay in shaqadii ay ka shaqaynayeen ee khibrad ka kasbadeen, khibradda ay ka helaan shaqadaasna in ay iyaga ku shaqaysteen meelna ay ku gaareen. haddaba qorshahayna waxaa weeye kow inaan wax keedsano, kadibna aan ku furano ganacsi annaga noo gaara.